إن أنا حلكيغا وقدنايو si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaal ilaahay idinku anfaco xildhibaan xasan cabdi nuur cabdi xildhibaan xasan cali maxamed xildhibaan xasan ibraahim maxamed xildhibaan xasan macalin xuseen xildhibaan xasan macalin maxamuud sheekh cali xildhibaan xasan cusmaan xuseen qoryooley xildhibaan xaawa maxamed aadan xildhibaan xaawa yuusuf aadan xildhibaan xirsi aadan rooble xildhibaan xiis xasan aadam xildhibaan xuseen carab ciise xildhibaan xuseen maxamuud sheekh xuseen xildhibaan xuseen cusmaan xuseen xildhibaan xuseen qaasim yuusuf xildhibaan ibraahim isaaq yarow xildhibaan ibraahim maxamed xuseen bulle xildhibaan idriis cabdi tagtar xildhibaan ikraan aadan absuwe xildhibaan ikraan yuusuf xirsi xildhibaan imaan cabdulaahi cali gacanta la saaro gacanta midig bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaal ilaahay ha idinku waafaqo xildhibaan maryan macalin isaaq xildhibaan maryan maxamed xuseen xildhibaan maryan maxamuud muuse xildhibaan maryan maxamuud ciise xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh farac xildhibaan miina xasan maxamed xildhibaan macalin cali aadan xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye xildhibaan maxamed cabdi maxamed gaandhi xildhibaan maxamed cabdi kaafi maxamed xildhibaan maxamed cabdilaahi faarax xildhibaan maxamed cabdilaahi faarax xildhibaan maxamed aadan macalin cali xildhibaan maxamed abuukar islow xildhibaan maxamed cabdulle faarax xildhibaan maxamed axmed maxamed xildhibaan maxamed cali xuseen xildhibaan maxamed cali cumar
xildhibaan maxamed diiriye khaliif xildhibaan maxamed xasan ibraahim qoone xildhibaan maxamed xasan idriis xildhibaan maxamed xuseen isaaq afraale بسم الله الرحمن الرحيم gacanta qofka cudurdaar lahayn waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaalla الله يديكم أنفعه xildhibaan maxamed ibraahim cabdi xildhibaan maxamed isaaq cusmaan fanax xildhibaan maxamed jaamac mursal xildhibaan maxamed mursal maxamuud boorow xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan xildhibaan maxamed nuur iftiin shambara xildhibaan maxamed nuureeni bakar xildhibaan maxamed cumar aymow xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan maxamed cumar carte xildhibaan maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaan maxamed cabdilaahi maxamed xildhibaan maxamed ciise maxamuud axmed ciise xildhibaan maxamed cali magan xildhibaan maxamuud xayir ibraahim xildhibaan maxamuud macalin yaxye xildhibaan maxamuud maxamed boono xildhibaan maxamuud maxamed jumcaale xildhibaan muuse axmed ismaaciil xildhibaan mustafa sheekh cali dhuxulow بسم الله الرحمن الرحيم gacanta hala saaro gacanta midig welida waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal ilaahay idinku anfaco
xildhibaan nadiifa faarax jaamac xildhibaan naciima maxamed gacal xildhibaan nuuriye aadan ciise xildhibaan cumar ismaaciil waaberi xildhibaan cumar cusmaan waasuge xildhibaan cusmaan cilmi boqore xildhibaan cusmaan xaaji cali xildhibaan cusmaan liibaan ibraahim xildhibaan cusmaan maxamed cabdi xildhibaan brofesor saalim caliyow ibrow xildhibaan qaasim maxamed jaamac xildhibaan rabaco sheekh nuur xildhibaan saadiq xirsi warfaa xildhibaan sacadiyo muuse cabdulaahi xildhibaan sacadiyo xaaji samatar xildhibaan safiyo xildhibaan xildhibaan saadiq xirsi warfaa xildhibaan sacdiyo muuse cabdilaahi xildhibaan sacdiyo yaasiin xaaji samatar xildhibaan saadiq cabdikariim xaaji ibraahim xildhibaan sacdiyo carays ciise xildhibaan safiyo xuseen nuur xildhibaan sagal cabdirasaaq biixi xildhibaan saara cabdiraxmaan cabdulqaadir cabdiraxmaan xildhibaan saare xaaji xuseen xildhibaan saare xaaji xuseen gacanta midig bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaalla ilahay idinku anfaco xildhibaan sahra jaamac cali qorsheel xildhibaan sahra cumar mucallin xildhibaan sahra cumar maalin xildhibaan saciid xasan geedi xildhibaan saciid xuseen ciid xildhibaan saciid nuur qayliye xildhibaan saciido maxamed xasan xildhibaan saalax axmed jaamac xildhibaan samiire xasan cabdallah xildhibaan sandheere maxamed iftin xildhibaan sareeda maxamed cabdallah xildhibaan sayid cali cabdulqaadir mucallim xildhibaan shariif maxamed cabdallah xildhibaan shariif sheekhuna maye xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur madoobe xildhibaan sheekh nuur maxamuud xasan
xildhibaan sulaymaan maxamed xaashi xildhibaan suuri diiriye carab xildhibaan waqar ibraahim cabdallah xildhibaan ubax tahliil warsame xildhibaan warsame maxamed xasan بسم الله الرحمن الرحيم gacanta midig waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u yaala Ilaahay idinku anfaco مريم بيت حلد ما أبو ما ننحل أبو وانحل جيران محل جيران محل أبيت كان بالعرب ايه اسكول ده هلو حلدبان إساق محمود أبو حلدبان إسكو ديرو إساق حلدبان إسماعيل عبد الرحمن شيخ بشير حلدبان جمال حسن إسماعيل حلدبان جواهر عضاوي عبدي حلدبان جيلان النور إيكر شيخ صوفي حلدبان جبريل عبد الرشيد حاجي حلدبان خديجة محمد ديريه حلدبان خضرة محمد تكاله حلدبان خالد معو عبد القادر حلدبان خليف عبد عمر حلدبان خليف شيخ عبد الله حلدبان ليبان عثمان عبد الرحمن
xildhibaan luuley cabdi aadan okay xildhibaan mahad cabdalla cawad xildhibaan mahad maxamed salaad xildhibaan maryan aweys jaamac xildhibaan maryan xaaji cabdi geeddi xildhibaan maryan axmed haaruun xildhibaan maryan cariif qaasim بسم الله الرحمن الرحيم gacanta midig qofkaan cudurdaar lahayn بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taal ilaahay idin waafajiyo kuwan hadda la dhaariye ma hore ma xadran Maryam adu Maryam xildhibaan Maryan Macallim Isaaq xildhibaan Maryan Maxamuud Ciise xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax xildhibaan Mina Xasan Maxamed xildhibaan Macallin Cali Aadan xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir أو كيس حاحة راندم يلا أو كيس حاحة بس هذا مع العمل حلدبان يعقوب علي محمد حلدبان يورب أحمد رابي حلدبان يوسف حيلة جمعالة حلدبان يوسف حسين أحمد حلدبان يوسف إبراهيم أفرح حلدبان زكريا حسن شيخ علي حلدبان زكريا محمود حاج عبدي
طيب بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay ha idin waafaqo السلام عليكم xildhibaanada labada gole xildhibaankii aan la dhaarin biliis halkan kaalay xildhibaanka golaha aqalka labada gole midkooda oo aan la dhaarin ha yimaada dhaar hadduu jiro waayo liiska waan dhammaynay waxaa laga yaabaa inuu qof maqli waayo ama ay dhacdo inaan anagu magac ishaydu dul marto therefore ciddii aan la dhaarin fadlan halkan ha yimaadaan qofkii aan attendanceska saxeexin xildhibaankii aan saxeexin labada gole attendanceska please kaalay oo saxeex waad mahadsantihiin intaana laguma dhaarin yaa kale oon maqlayn markii aan xaadirinaynay xildhibaankii aan la dhaarin fadlan kaalay ma waraaqa hadda ma yaallaan way dhammaadeen baraa la isiina maya saxeexa aan sheegayno waa attendance waa attendance okay أسعد تعال بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay idinku aamin
السلام عليكم محمد حسين راقي أو هيرشبيلة كسو قلي فضلا إيكالي الدبان محمد حسين راقي أو هيرشبيلة كسو قلي فضلا حقني وكالي يا ها xildhibaan maxamed xuseen raage oo hirshabeelle ka soo galay fadlan ii kaalay waraawe ninkii aan hadda raadinayay محمد حسين راقد hirshabeelle ka soo galay war ma ii soo qabanaysaa hadal markale ma garanayo والله كالكوليشن بقى لسه قاعده الماجورتي ما قرر هو حاضر لي يوم عند الدكتور ما قرر Thank you. هلو يان لبحن أجندو ولي مدمان أجندو ولي مدمان يان لبحن فضلا ما نبحي كرتان بس كان نغاهين طيب ما كرني أوه ما ودان ونهد ما ودان با تعال أنا فقط ودان قبوبي هذا بدن يقداين كان هذا
نظام فريستا نظام اللي بانو فريستا عند أنكونان مركب نظام هلا فريستا اللي بانو هلا فريستا عن شغل كونان فريستا اللي بانو فريستا اللي بانو سوق على فريستا من فضلكم فريستا howlwadeennada u yeera xildhibaanada bannaanka jooga ha loo yeero xildhibaanada bannaanka jira ha soo galaan min fadlakum aan hawsha dhammaystirno nidaam hala fadhiisto min fadlakum saacaddu waa socotaa nidaam soo gala نظام يا أخي سوق على اللبانة نظام xildhibaano mudanayaal walaalayaal soo galanay dadka hortaagan min fadlakum fariista fadlan alla soo galo min fadlakum fariista dadka hortaagan min fadlakum fariista yaa akhwaanna mudane ra'iisul wasaare xildhibaanada soo galo xildhibaanaha xildhibaana alla soo galo xildhibaano alla soo galo xildhibaano soo galo soo xirada baabuur ma iyaga haysta baabuurta warwadga adiga saaxiibka iyo حالك من فضلكم فريستا اللي معنا السيس على سيب بحيو من فضلكم فريستا رالي هذا وحيرا نو هرسن لما يسترنا اللي معنا من فضلكم وإحسانكم سوقلا برنامج عن لما يسترنا عن قناندنا إن يرباهرتي سوقلا الباب كدتك تورا من فضلكم كل يحدى اللي معنا سوقلاني اللي معنا يا بسم الله الرحمن الرحيم مدنيال برنامجك انت سهرسنا وقالينا waxaa la soo gaaray maanta mar haddaad dhaarateen waad ansixin kartaan waxaa la soo gaaray magaciisii markii oo la ansixin lahaa qaraarada soo socda oo 7 ah oo halkan aan idinka akhrin doono baarlamaanka federaalka Soomaaliya asagoo ku kulansan kalfadhigiisii koowaad kulankiisa wada jirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka wuxuu mahad gaar ah u jeedinayaa iyo bogaadinba u jeedinayaa guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer dawlad goboleed sida wacan oo mihnadyahanimada ku dheehan ee ay muddo gaaban u soo fuliyeen doorashooyinka dadban ee golaha sharci dejinta federaalka Soomaaliya qaraarka labaad waxaa kaloo baarlamaanku u mahad celinayaa odayaal dhaqameedka iyo ergooyinka doorashooyinka shacbiga wakiilka u ahaa sida ay ugu soo dulqaateen fulinta xaqooda siyaasiga ah oo ay muwaadin kasta uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu codkiisii ku doorto hogaamiyayaashiisii dalka qaraarka saddexaad
ciidamada baarlamaanka federaalka wuxuu mahad gaara iyo bogaadin u jeedinayaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada amisom sida wadannimada iyo daacadnimada ku dheehnayd ay u sugeen goobaha doorashooyinka ka socday welina ay u heegan u yihiin sugidda amniga dalka iyo dadweynaha guud ahaanba qaraarka afaraad baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo labadiisa aqal wadajir u kulansan wuxuu deeq-bixiyaasha beesha caalamka iyo hay-adaha qarumaha midoobay sida had iyo jeer ay dawladda Soomaaliyeed taageero joogto ah ula garab joogaan qaraarka shanaad hay-adaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah oo goobjoogayaal ka ahaa doorashooyinka dadban ee 2016 sida fiirada dheer ay ugu kurgaleen habsami u socodka doorashada loogu fulinayay goobaha doorashada dalka qaraarka toddobaad qaraarka lixaad baan leeyahay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku kulansan kulankiisii koowaad ee wadajirka ee labada aqal ay fadhiyaan wuxuu shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan ugu mahad celinayaa sida wacan ay uga qayb qaateen doorashooyinka xildhibaanada codadkooda ku matalaya golaha sharci dejinta qaranka qaraarka toddobaad mahad gaar ah waxaa loo jeedinayaa taliska booliska iyo taliska ciidamada iyo macallimiinta iyo fanaaniinta akademiyada booliska Soomaaliyeed sida habsamada ah ay munaasabadaha sare ee qaranka ay mar walba u martigeliyaan si maamusanna ay ugu fuliyaan mudanayaal waxaan codsanayaa inaad gacantaag ku ansixisaan toddobadaas qaraar xogeynta soo diyaarin doonto ma ogoshihiin ma la ogol yahay dejiya imisaa diidan ma jiraan imisaa ka aamustay ma jiraan marka waa toddobadaas qaraar waxay ku ansaxday wadar ogol bay ku ansaxday waxaan u yeerayaa xoghayaha guud waxaan ka codsanayaa inuu noo sheego xildhibaanada ugu da'da weyn xubnaha golaha shacabka iyo xildhibaanka ugu da'weyn aqalka sare si waafaqsan qodobka 65aad faqradiisii koowaad ee dastuurka federaalka golaha shacbiga ee aqalka sare si ay labada aqal ugu shirgudoomiyaan si ku meel gaar ah ilaa iyo inta oo golayaasha ay ka dooranayaan guddoomiyayaashooda iyo ku-xigeenada xogayaha guud ha ku soo dhowaado ha noo sheego magacyada asalaamu calaykum golaha shacabka waxaa ugu daaweyn xildhibaan Cusmaan Cilmi Boqorre Cusmaan Cilmi Boqorre diyaar muu tahay inaad la wareegto guddoonka ku-meel gaarka ah shir guddoonnimada ma joogaa xildhibaan Boqorre meey diyaar haddaad tahay kaalimka wuxuu noqonayaa xildhibaan Boqorre wuxuu noqonayaa shir guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ilaa iyo inta aad ka dooranaysaan guddoonkiina iyo guddoomiye ku-xigeenada golaha shacbiga ha loo yeero yaa ugu da'weyn ama diyaar u ah inuu qabto xildhibaanka aqalka sare golaha aqalka sare waxaa ugu da'weyn oo diyaar ah inuu qabto xildhibaan Maxamed Xuseen Raagi xildhibaan Maxamed Xuseen Ibraahim oo Hirshabeelle ka socda wuxuu noqonayaa shir guddoomiyaha ku-meel gaarka ah ee aqalka sare ha ku soo dhowaado haleegu yeero qoladii Said qoladii booliska soo galaan booliska ma soo galin aade akhriskiisa ma bilaabaya kaalaya hala soo dhaqsado kuwaas waxay ahaayeen labadii qofood oo ugu daaweyn qaar ka daaweyn baa jira laakiin ka cudur daartay waxaa ogolaaday in xilkan ay fuliyaan dadka ugu daaweyn waa aragnay kuwa ugu daaweyn anaa ugu dhalan yarta haddaba saa ogaada
waxaan rabaa inaan u yeero xildhibaan ikraam aadan absuge ma joogtaa xildhibaan ikraam absuge ma joogta hadday joogto ha istaagto xildhibaan ikraam ma joogtaa xildhibaan ikraam fadlan istaag xildhibaan ikraam aadam absuge xildhibaanadaas wax kale uguma yeerin waxaan rabaa inaad barataan waa xildhibaanada ugu da'yar golaha shacabka waxaa kaloon u yeerayaa xildhibaan fartuun cabdulqaadir faarax ma joogtaa waa xildhibaanada ugu da'yar golaha shacabka ay soo baxday fartuun cabdulqaadir faarax ma joogtaa xildhibaan fartuun cabdiqaadir faarax xildhibaan fartuun cabdiqaadir faarax xildhibaan fartuun cabdulqaadir faarax waa xildhibaanada ugu da'yar aqalka sare marka labadooda waxay kaalimin doonaan labada ugu da'weyn marka da'weyn iyo da'yaraba waa okay تفضل markii ku yar adiga fartuun ma hayna laakiin fartuun ugu da'yar sida hadda qoraaladana loo keenay inta xildhibaan isdiiwaan geliyay mudanayaal waxaan idinku wargelinayaa muddadii baarlamaanka sagaalaad waxaa soo dhawaatay markaan ka tegaya xoogaa yar 5 daqiiqo iyo adkaysta waxaa muddadii 2012 ilaa waqtigan hadda la joogo 2016 maanta oo 27 ay tahay bisha December xilka labada aqal waxaa isku hayay golaha shacabka sida dastuurka ku yaala saadaradeed maanta waxaa si rasmi ah u sameysmay aqalkii sare waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada aqalka sare oo halka fadhiya inay istaagaan si ay u dhageystaan gudoomiyahooda arrinta uu sheegay xildhibaanada aqalka sare ha istaagaan xildhibaanada aqalka sare istaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nidaam aanis dhegaysanno anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada loo doortay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaan halkan ka cadeynayaa in aqalka sare uu dhismay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo dhismay si waafaqsan sharciga qodobkiisu yahay 55 dastuurka federaalka oo qodobkiisu 55 ee dastuurka federaalka anagoo xildhibaanada aqalka sare waxaan ballan qaadaynaa in aan hagar la'aan dalkeena ugu shaqayno si daacad ah kuna shaqay doono danta iyo wadanka guud ee Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed calanka ma sanadiin mahadsanidin fadhiista
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin baambeyda waxaan rabaa inta aanan ka degin xilka inaan laba arrimood aan saxo si shacbigana uusan ugu wareerin qodobka koowaad aan rabo inaan saxo dhammaan shacbiga Soomaaliyeed iyo dhammaan ajaanibtaba dastuurkeena kuma yaalo wax la yiraahdo aqalka hoose waxa dastuurkeena uu qabaa golaha shacabka iyo aqalka sare marka yaanan maqlin mar dambe aqalka hoose wax la yiraahdo aqalka waxa weeyaan golaha shacabka iyo aqalka sare weeyaan wax la yiraahdo aqal hoose ma jiro lower house ninkii yiraahdaan hadda ka bacdi oo ajnabi ah ka saxa arrimahaasi yaan laga ogolaan taasi waa hal qodob aan rabay inaan saxo waxaa la soo gaaray markii aan meesha ka degi lahaa oo aan xildhibaan jawaari noqon lahaa waxaan rabaa inaan mahad gaara u jeediyo dhammaan xildhibaanadii aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka sagaalaad ee Soomaaliya oo ila soo shaqeeyay mahad gaara inaan u jeediyo sida hiilka lahaa iyo adkeysiga dhabar adeega ay igu soo kaalmeeyeen xilkaasi culus inaan soo wadno ilaa aan soo gaarsino maanta oo taariikhi ah 47 sano ka bacdi ay suurtagal Soomaaliya u noqotay in ay baarlamaan fadhiya ku wareejiso xilka baarlamaan cusub oo la soo doortay taasi waa mahad Ilaahay aan alxamdulillah nidhaahno oo nicmadan oo Alla nasi Ilaahay noo badiyo waxaa sidoo kale aan mahad gaara u jeedinayaa dhammaan howlwadeennada baarlamaanka oo dhabar adeegay iyo dhafar badan aan ku diray hay cafiyaan laakiin waxa aan Allah subhanahu wa ta'ala idinka baryaa in abaalkiina lacag idin masiin waa ogahay laakiin abaalkiina Allah gudaaya waa ku mahadsantihiin intaad soo kaalmayseen dhabar adeeg aad soo sameyseen iyo dadaalka aad sameeyseen sida gaarka aad soo xilqaanteen abaal badan ayaa idinku haya Ilaahay abaalkiina idin gudaad waad mahadsantihiin dhammaan shacbiga Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay iska kay cafiyaan muddadii aan xilkan hayay haddii erey iga dhacay ama si kale ayaan waxba u rabin ama ay qoonsadeen uu jiro iga dhaceen ibn aadan baan ahay iga raalli ahaada shacbiga Soomaaliyeed dhamaantooda ugu dambeyntii waxaan rabaa arrin yar inaan saxo oo ah muddadii oo doorashada lagu jiray dad badan mahadsanidin baarlamaanka sagaalaad waxa caado u ahayd markii oo qof uu xilka la saaro inaan waxaan ugu hambalyo ma dhihi jirin waxaan dhihi jirnay garabkaaga Allah galo idinkana waxa dadkiina oo soo guuleystay waxaan leeyahay garabkiina Allah galo xildhibaanadii jaalayaashayda ahaay oo baarlamaanka sagaalaad igala soo shaqeyn jiray laakiin aan dib loo soo doorana ayagana waxaan leenahay hambalyo waayo xilkan culus Ilaahay baa idinkaga naxariisay hambalyo aan leenahay kuwaas idinka garabkiina Allah gal ayagana hambalyo arrinta ugu dambaysa gudoomiye kaftan baa iga ahaatay laakiin toosinna ku jirta muddadii doorashooyinka aan ku jirnay dad badan baa waxay website-yada ku qoreen gudoomiyihii hore ee oranayeen gudoomiyihii hore hadda laga bilaabo ay dhihi kartaa markaasi qalad ay ahayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa hadda inaan u yeero gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka mahad
waa mahadsan tahay gudoomiye waxaan marka hore hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa xildhibaanada labada aqalka sare iyo golaha shacabka ee maanta maray dhaartii waajibka ahayd iyo sidoo kale waajibka dastuuriga ah ee aanu gudannay oo ah inaannu dooranno guddoomiyaal kumeel gaar ah oo labada aqal hoggaamin doona waxaan uga mahadnaqayaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka sida wanaagsan ee uu hawshan maanta u soo agaasimay mudane guddoomiye waxaa laygu yeedhay waxa weeye waa hawl culus ayaa laygu yeedhay hawshaa culus waxay tahay in aan fasiro ama aan warbixin hordhaca ka bixiyo shaqada ugu horraysa ee u taalla labada aqal taasoo ah in ay ka doodaan wax ka beddelaan wax ku kordhiyaan wax ka saaraan xeerka kumeelgaarka ah ee golayaashan hawshiisa hagi doonta wakhtiga doorashooyinka guddoonka iyo madaxweynaha howlwadeenno iyo farsamo yaqaanno ka tirsan golaha shacabka ayaa waxay soo diyaariyeen draft oo ah xeerkaas kumeelgaarka ah waa laydin wada qaybiyey wax badan oo ku qoranna durtaba xildhibaanadu waxay ka qabaan afkaar bay ka qabaan waxa weeye waxa ku qoran documentkan qaybo ka mid ah waa wax laga soo minguuriyey dastuurka sida kumeelgaarka ah loo ansixiyey oo wax badanoo wax ka beddel ah ma yeelan doonto laakiinse waxaa ku jirta qodobo badan oo ah wax ay madashu soo gaadhay laakiin aan dastuurka ku jirin hadda wixii ka dambaysa baarlamaankii tobnaad baa dhismay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaan rasmiyay leedahay wixii go'aan gaaris ah waxaa iska leh baarlamaanka ee madashu ma laha madasha hoggaanka qaran door muhiima ayay soo qaateen meel bannaan ayay buuxiyeen waana ku mahadsan yihiin laakiinse hadda wixii ka dambaysa baarlamaankan ayaa taladiisii la wareegay soomaaliya ilaahay ka sokowna baarlamaankanaa u taliya waxaan rabaa inaan haddaba idiin tilmaamo meelaha la doonayo in si waafi ah looga soo baaraan dego oo xildhibaanadu ay waxa weeye afkaartooda ay u soo diyaarsadaan si markii laga doodayo ay diyaar u yihiin inay dooddaas ka qayb qaataan qodobka ugu horreeya waxa weeye
qodob sanadkii 2012ka la wajahay oo yacni dood badan ka dhacday haddana la doonayo in go'aan laga gaaro qodobkaas waxa weeye dastuurka qodobkiisa 89aad firqadiisa 3aad waxay sheegaysaa musharax walba oo madaxweyne in ay soo jeediyaan ama soo bandhigaan 20 xildhibaan intaasay ku eg tahay intuu sheegayo dastuurku wixii ka dambeeya idinkaa laydinka rabaa inaad ku dartaan madashu waxa ay tidhi 20 xildhibaan oo walba hal musharax bay soo jeedin karaan ayay madashu tidhi baarlamaanku muxuu yidhi idinkaa laydinka rabaa inaad go'aan ka gaadhaan baarlamaankii 9aad waa ka dooday arrinkaas meesha bannaanna way buuxiyeen oo waxay dhaheen 2 ilaa 3 musharax ayuu xildhibaankiiba u soo saxiixi karaa baarlamaankani go'aanku ka qaadanayo waa arrin weli calool ku jira oo loo baahan yahay inaad idinku soo bandhigtaan qodobka kale waxa weeye lacag guddoonka baarlamaanka musharaxiinta curaarta laga qaadayo iyo musharaxiinta madaxweynaha waxa weeye afkaartii madasha meeshan ay ku qoran tahay waxa ay sheegaysaa madaxweynaha in $30,000 laga qaado musharaxiinta madaxweynaha sanadkii 2012ka waxay ahayd $10,000 bay ahayd baarlamaanka go'aanka iska leh wax dastuurka ku qoran ma aha madashu waxay soo jeedisay 30,000 10,000 ayaa laga dhigi karaa waxa laga dhigi karaa 20,000 30,000 baa la qaadan karaa inta doontaan baa ka dhigi kartaan arrinkaas in ay xildhibaanadu ka soo doodaan oo marka go'aan laga qaadanayo ay afkaartooda soo ururiyaan ayaa loo baahanayaa xildhibaanada waxa weeye guddoonka ayadana waxay ahaan jirtay sanadkii 2012ka guddoomiyuhu wuxuu ahaa $3,000 guddoomiye ku-xigeenka koowaadna wuxuu ahaa $2,000 ka labaadna wuxuu ahaa $1,000 xildhibaankana waxba lagama qaadi jirin haddase xildhibaan walba golaha shacabka 5,000 buu soo bixiyey aqalka sarena 10,000 buu noqday marka xisaabtii waxba iska bedelaya waxa ay noqonayso go'aankeeda xildhibaano annagaana laga doonayaa si uu xeerkani u noqdo mid dhaqan gala oo uu labadan aqal ay u ansixiyaan oo loogu shaqeeyo si ku meel gaara kadibna xeer hoosaadyadii rasmiga ahaa ee aanu shaqadeenna 4 sano ku gudanaynay ayaanu samaysan doonnaa laakiin hadda ilaa iyo doorashooyinka guddoonka ilaa iyo madaxweynaha waxa weeye wixii aan ku shaqayn lahayn ayaana laga doonayaa in aanu go'aan ku qaadanno arrimahaas waxaa kaloo la jira arrin kaloo xasaasi ah waxa weeye shaqo baarlamaan ma laha in wixii xasaasi ah laga leexleexdo waxaa ku qoran qodobka 4aad si waafaqsan qodobka 111 farqadda ba ee dastuurka guddiga isku dhafka ah ee doorashooyinka madaxweynaha waxaa si goobjoognimo ah ula shaqaynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si ay u hubiyaan habsami u socodka habraaca doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ku qoran okaadiya waxaa jira guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo doorashooyinka dadban soo hagayay ra'yi baa wuxuu sheegayaa labada guddiba goobjoog ha ka noqdaan ra'yi kale wuxuu sheegayaa labaduba ha iska raalli ahaadaan baarlamaanku guddigiisa hawsha wadanaya
go'aankeeda baarlamaanka ayaa iska leh labada aqal ayaa iska leh hawshaydu waxay ahayd inaan meelaha aan dastuurka ahayn ee ay guddigaas farsamo ee soo shaqeeyey iyo madashu ay soo gaareen in aan iftiiminno si aanu go'aamo degdeg ah uga gaarno hadduu ilaahay yidhaahdo waajibkaas yar ayaa lay dhiibay inaad si wanaagsan u fahamteen ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan u sheego xubnaha aqalka sare shirku waqtiga shirka inuu dhacaa dib baan ka soo sheegaynaa si degdeg ah in saas ogaadaan ayaan rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم قدون كبارلمانكا رئيس الوزراء madaxda kale oo halka kan fadhida xubnaha labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare howlwadeennada golaha baarlamaanka saraakiisha ciidamada qalabka sida ee kala duwan shaqaalaha warbaahinta qaybaheeda kala duwan marti sharafta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadan waad salaamantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالد waxay tira hadal badan xeeray ma buuxsho waqti xunna waan joognaa marka hawshu way socon doontaa insha Allah ta'ala hadduu alla yiraahdo anuu kulli iskaga warrami maayo 7 sano ayaan guddoonka baarlamaanka mid ahaa marna waxa baan haaba ku sima guddoomay dhowr bilood hawlaha baarlamaankana waxaan isleeyahay intooda muhiimka waad gudan kartaa taas waxa ag taalla haddii alla idmo waxa dastuurkaas uu dhigayo ayuun baan ku shaqayn doonaa anu hebel baa yidhi iyo kanaa yidhi maya dastuurkaas wuxuu yidhaaho un baan ku shaqayn doonaa inta yar muddada yar oo aan haayo xilkana allah nagu garab galo wax kaste alla awooddiisa weeyaan shakhsi isagu wax samaysan kara ma leh alla awooddiisay ku imanaysaa wax kaste walaalayaal wixii hadala ee dardaarana ee toosin iyo tusaale ah dib baynu u yar dhigan doonaa waqtigan waqti xun baynu ku jirnaa waqti xun baa saacad xun baa lagu jiraa waa la xakaaray marka intaa hadalka inaan wax kale ku daro ma rabo shirki waa inoo xidhan yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
boobaya dalka yaa lagu beeraya dalka yaa laga boobaya dalka yaa lagu beeraya dunida xaggee loo raacaya dunida xaggee loo raacaya dunida waxaa la raacaya inay degto cadow doonaya inay degto cadow doonaya dembi maxaa loo daawadaa daacad maxaa loo diidayaa dembi maxaa loo daawadaa daacad maxaa loo diidayaa daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay daacad waxaa loo diidi karin dalkeena bay dawadiisa tahay dalkeena bay dawadiisa tahay dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad maxaa loo diidayaa dowlad la'aan loo doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa dowlad waxaa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa daryeelkii baa laga doonayaa ducaa maxaa loo diidayaa ducaa la'aan loo doonayaa ducaa maxaa loo diidayaa ducaa la'aan loo doonayaa ducaa waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa ducaa waxaa loo diidi karin dikri allah laga doonayaa dikri allah laga doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa beenta maxaa loo daba ordaa runta maxaa loo doonayaa runta maxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay runta waxaa loo doonayaa qof daacaday dugsigiisu tahay qof daacaday dugsigiisu tahay nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa nabad maxaa lagu diidayaa colaad maxaa loo doonayaa colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay colaad waxaa loo doonayaa nin daalinay dantiisa tahay nin daalinay dantiisa tahay bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa bidcadu maxay doondoonayaan diinta miyaa la bedeli karaa diinta inaan la bedeli karayn daa in allah ku xafiday difaac diinta inaan la bedeli karayn daa in allah ku xafiday difaac